waxaana garab istaagayoo geelanoo qalaa gurmadkaanoo fidiyayoon aan marayn gadaal gobow inaa roob la wiil aan la gaari karin allaha guuleeya meeshay gadiisu tahay musharax madaxweyne maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii hore xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa deeq xoolo nool ah waxa uu gaarsiiyay dhaawacyada ciidamada macawisleyda ah ee ku jira mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. musharax madaxweyne maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii hore xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu hore ugu ballan qaaday dhaawacyada ciidamada macawisleyda ah ee ku sugan magaalada Muqdisho yaalana mid ka mid ah cusbitaalada Muqdisho in uu garab istaagi doono kadib markii uu booqasho ugu tagay kal hore ciidamada macawisleyda ee dagaalka adag kula jira al-shabaab ayuu sheegay inay muhiim tahay in mar walba la garab istaago gaar ahaan kuwa dhaawacyada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. deeqdan ayaana noqonaysa tii labaad ee uu gaarsiiyo musharax madaxweyne maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii hore xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo hore uu u gaarsiiyay daawooyin iyo agab kale oo caafimaad. guddiga dhaawacyada ciidamada macawisleyda ah ee ku sugan mid ka mid ah cusbitaalada ku yaala Muqdisho ayaana deeqdan kala wareegay maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddana ah musharaxiinta ugu cadcad ee u taagan xilka madaxtinimada dalka. annagoo runtii matalayna ama ka soconna guddi khaas ah oo uu soo dirsaday musharax madaxweyne badbaadiyihii qaranka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaasoo u soo xil saaray inay ka gaarsiiyaan walaalahooda dhibaataysan geelan aad ujeedaan si uu ula qaybsado maalmaha farxadda iyo ciidda. waxaan rajaynaynaa inaan ku wareejino guddiga oo inta badan hadda ay ila joogaan oo ah guddigii dhaawacyada isbitaalada macawisleyda mujaahidiinta macawisleyda gobolka Hiiraan qaasatan ku hadlaya afka gudoomiyaha gabdhaha xawaadla gobolka Banaadir na ah gudoomiyaha guddiga dhaawacyada. waxaan maanta u taaganahay oo noo yimiday nasoo garab istaagay guddi ka socdo maxamed rooble ra'iisul wasaarihii hore ahna musharax madaxweyne kolay gacantii koobaad ma ahan sida horeyba u aragteen waa markii labaad oo garab istaag muujiyay walaalihiis ama mujaahidiinta macawisleyda uu soo garab istaagay. annagana waxaan leenahay ka guddi ahaan waa mahadsan tahay mudan musharax madaxweyne kolley qof walba waxa lagu arkaa maalintay dhibaatadu taagan tahay sida uu bulshadiisa iyo shacabkiisa ula wadaago dareenkiisa. waxaan leenahay waa mahadsan tahay waa ka gudoonay guddigana aad u mahadsan yihiin adiga wakiilka ka oo soo gaaray. waa mahadsan yahay musharax madaxweyne ahna ra'iisul wasaare hore mudane xuseen maxamed rooble sidoo noogu soo noqday oo markii koobaad aan ahayn markii labaad mar saddexaadna waa ka filaynaa. waxaan joognaa hoygii lagu daweeyay dhaawacyadii mujaahidiinta ku soo dhaawacmay gobolka Hiiraan anagoo ah guddigii dhaawacyada waxaan ka u taagana inaan ka gudoono deeqdan geel ah oo nagu soo garab istaagay badbaadiyihii qaranka ra'iisul wasaare ahna musharax madaxweyne ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ahayn markii koobaad markii hore wuxuu noqday mas'uulka ugu horeeyay oo xil dawladeed maxaa la lahaa ku haminaya oo noo soo garab istaago kaasoo noo keena markii koobaad deeq daawooyin ah iyo sidoo kale deeqo kala duwanba. markii labaadna waa aragtaan iyadoo maalin ciid lagu jiro dagaalada nagu furiyihiin dagaal oo ka socda gobolka Hiiraan qaasatan deegaanka Cilxariiri. maanta oo ay tahay maalintii labaad ee ciidda waxaa deeq geelana soo gaarsiiyay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ahna musharax madaxweyne. mudane ra'iisul wasaare waan kaaga mahad celinaynaa in isbuucyo gudahood markii labaad aad nala dareen noqoto aadna soo booqato. markii koobaad aad noo imaanaysay waxaa indhahaada ku aragtay inaad ka soo jawaabayso mar labaad noo imaanayso waa filaynay. waan kaaga mahad celinaynaa in mujaahidiinta dhaawacyada ah isbitaalada ku jiro aad la dareen tahay mar walbana sidaad ballan hore u qaaday aad u imaan doonto. mudan ra'iisul wasaare waa kaaga mahad celinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waana ka gudoonay. sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guddiga oo soo wakiishay mudanaha waana ka gudoonay deeqdii geelaheed. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan maanta na soo gaarsiiyay deeq geel ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble
waana gacantii labaad oo ra'iisul wasaaraha naga soo gaarayso asagoo ugu talagalay dhaawacyada xaqu dirarka Hiiraan inuu la garab istaago deeqdaas geela ah maanta inay ku iidaan ugu talagalay waxaan leenahay ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay kuni koo jeerba waa mahadsan tahay Askari Maxamed Salaaf Somali TV Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega Dhamays Plus xawaare sare iyo internet tayadiisa la hubo ku shuba $17 iyo bar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah waxaa intaas ku dheer adeega Nashaad IPTV oo aad ka maqsuudi doonto uga shuba ii dahab kood nambarka xidig hal eber hal 4 gees